anagoo ku camal falayno qolka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabigeena wuxuu leeyahay man laa yarxam laa yurxam. nin aan naxariisan looma naxariisto. unugaan naxariis buu nooga baahan yahay inaan u naxariisano si ilaahay noogu naxariisto. lianna maanta unug 13 jir ah qaangaar ku dhowaad ah yaraantiisa umul asoo ku jiray dhibaatadii ku dhacday oo ilaa yoomina haada laga rafaadsan yahay kaadi uusan ceshan karin xaar uusan ceshan karin dareemihii wax gaaray wixii aan u fidin karno yaan laga xaqirin baaqaas baan idin jeedinayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سين سلامي ميل والبس أدون كروكتان وولالكن ياسر أحمد جيسلاب يوتيوب كس أوفير سوا جيسلاب أفشيان فضلا هدي مقالك يسكسو جارو لايك سار أصحاب تعالوا ذاك وحي فكرة دانا كومنتي قواسي كريب مقالكن وحاسك ساب سنيا مركله لبنى مسعود أويس خضر أحمد كلنا لك قوادي قوال كشوالة هوسه gaar ahaan degmada Afgooye ayaa ujeedshi ahay in baaq la aan ka diro ummadda Soomaaliyeed. kulankaas waxa uu ka soo qayb galay culimaawidiin, aqooniyaan iyo ganacsatada. waxa uu ka hadalay fadiilatu Sheikh Maxamed Yuusuf Boqoljirow iyo akhuuna Maxmuud Sid Caalin iyo gudoomiyaha ganacsatada degmada Afgooye. ujeedada halkan aan isugu nimidna waxa weeye inaan u shafeeco qaadno wiilkan yar oo lagu magacaabo Mascuud Aweys Khadar Xaaji Mayow Cilmi. unugan yar iyo ahladiisa imtixaan alla u qadaray ayaa ku dhacay. wiilkan dhibka haysta waxa waaye من ذلك اليوم إلا عقل مركو يا شيء سحرة إيكاد والسعودان قرتها يكسب بحيان موجة يرانتيس إلا هذا حفايا لو أتني أفرسا حفايا أحرن أهلدي هو يدي دشينا إلهي جنة هو المرية وعرفات سنته هو أصلا أوروه haddana isbitaal ayaa lagu celiyey shaafi ayaa la geeyey iskaana loo diray iskaan ayaa loo diray iskaankii waa kana iskaankii marka wuxuu soo saaray qofkan qaliin ayuu u baahan yahay dalka gudihiisana wax loogama qaban karo laba dhakhtar buu u baahan yahay dhakhtar dhabarka iyo mid neerfaha. iskaanadii ay sameeyeen baaritaankii ay sameeyeen isbitaalka shaafi qoraal buu sameeyey waa kana dalka dibadiisa wax looga qaban karaa meesha ay ugu soo dhowdahayna Hindiya ama Turki waxaana fadilnaa uu yiri Hindiya in la geeyo. qoraalkii oo yani shaafi uu ka dalbay isbitaal in ninkan la qaabilo cuduradiisana wixii aan sameeyey waa kana waa loo diray iskaanadii ayaa loo diray waa kana iskaankana waa kana iyo dhiigagii wixii lagu baaray warbixintii uu qoray ayaa Hindiya loo diray isbitaal magay Medicover isbitaal la yiraahdo dhakhaatiirtiisa loo bandhigay dhakhtar neerfa dhakhtarkii neerfana wuxuu u yeertay oo tashi ay sameeyeen kii dhabarka oo lafaha waxay soo saareen qoraalkan uu soo qoray in wax laga qaban karo unugan wax waa loo qaban karaa qaliin uu u baahan yahay nimanka inta taladii ay bixiyeen dadkaasna waa ka soo jawaabeen in la qali karo ay wax laga qaban karo marka anagoo ah acyaantii beledka Afgooye acyaanteeda anagoo ah acyaan markaan aan leeyahay dadka indhaha ay ku dhacayaan culimadii aqoon-yahanadii odayaashii dadka indhaha ay qabanayso
marka ahladii unugan Mascuud ahladiisa aabba iyo hooyo iyo walaalihii waxay naga dalbeen inaan argan noqono baaq aan u jeedino dadweynihii Soomaaliyeed oo dhaqanka u ahaa dhaqan wanaaga lagu yaqiinay inay isu gurmadaan inaan baaq u farno marka unugan taqriiban wuxuu u baahan yahay lacag 30,000 ku dhawaad wixii soo bixi doonana lama oga marka waxaa la dhihi jiray hawl qof kaliya aan qaban karin jamaaca wax lama aha maanta 30,000 haddii aan qaybsanno waa wax fudud waayo marka sidaa daraaddeed ninkan gurmadkiisa laga qayb qaato anagoo ka camal falayno ilaahay qowlkiisa iyo rasuul Muhammad waxay nooga yeereen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay qof kasta muslim buu la hadlayaa lab ahaya dhidig ahaata wabtaghi fima aataaka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ha iloowin ninka muslimka ahow iyo gabadha muslimada ahba fima aataaka Allahu ad-dar wixii alla ku siiyay oo hantida alla ku siiyay iloowin aakhiradaada ka wanaaji ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا دنا كقاده نصيبك هذا xoolaha waa laga dhimanaya bari waa laga dhaxlaya adduun markii aad joogto xoolihi alla ku siiyay nasiibkaada ka qaado ya guri ku dhiso gaadiid ka samayso wa ahsan kama ahsana Allah ilayk sida alla ku wanaajiyayna dan yartan wanaaji xoolihi ina lagu kibra ma marka saa daraadeed 30,000 hadda wax uu yahay malaha ninkii 500 ka tabarrucay unugan ninkii 1,000 ka tabarrucayo ninkii ka badan ka tabarrucayo ninkii $100 ka tabarrucayo kii 50 odayaasha waxaan ka maqli jiray yarka irbid aruurtay misaar irbid haddii aruurta misaar wax bay goynaysaa anagoo ku camal falayno qolka nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu leeyahay man laa yarham laa yurham nin aan naxariisan looma naxariisto unugan naxariis buu nooga baahan yahay inaan u naxariisano si ilaahay noogu naxariisto lianna maanta unug 13 jir ah qaangaar ku dhawaad ah yaraantiisa umul asoo ku jiray dhibaatadii ku dhacday oo ilaa yoomina haada laga rafaadsan yahay kaadi uusan ceshan karin xaar uusan ceshan karin dareemihii wax gaaray wixii aan u fidin karno yaan laga xaqirin baaqaas baan idin jeedinayaa gaar ahaan haddana waxaan idin xasuusinayaa bisha lagu jiro bil ramadaan waaye bil barakaysan waaye ajarkana la laablaabo hala la baxo wiilkan hala taakuleeyo wiilkan haddii aan taakuleyno ilaahay noo gurmanaya asana ilaahay kaalmihiisaan helaynaa nabigeena muxuu leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi ما كان العبد في عون أخيه marka insha Allah baaqaas ayaan idin soo jeedinaynaa insha Allah haddii qofkii ilaahay qalbigiisa wax ku shar oo inuu wax la baaho ilaahay qalbigiisa ku sharaxana aabihiisa wuxuu leeyahay account waa leeyahay ala la soo xiriiro waxa looga soo rido telefoona ayuu leeyahay telefoonadan waxa waaye oo AFC Plus ah dhowr telefoon baa jirto mid furaha 5 waaye 58 56 33 32 marka insha Allah dahabshiilna waa jira asna mar insha Allah walidi akhrin doonaya marka haloo gurmado taasaan idinku baaqaynaa insha Allah walaalan waa iga dambeeyaan anigoo ah Maxamed Yuusuf Maxamed Boqol Jirow kana mid ah culimada degmada Afgooye oona baaq jeedintaasi xubinka inaan jeediyo
hadalkayga waxaan kusoo koobaa unugan aan u gurmano oo dhibaataas ku dhacday. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الكرام كل وحي ورقه والدماي ujeedada kolley laysinka kooyina walinsheegi waxay ataa walaalka oo keensoo baahdi inaas garab shay naqato marka war wixii la dhah lahay wal dhihi magana waxaan ka dara lahayay walaaga qofka la anqabada koro beesa kale shay in la dhiiba ma ah beesadaana wal baahan inaas dhiibto waxaa kaloo meesha ka jira wejiga haddii iswala qabadaawna inaas wala ka qabato waayo wejiga naftiis sadaqas ka leh sidees ka gala kore yacni hadda waxaan kolley aan kasoo wada waragnay cunugan baahidaas oo lacagta la ambaahanya in laga soo qayb qaado waxaa la ka yaabee dadka barshay inay wejiye kala yihiin dad wala haayo dad madax ah dad meel dhahay oo jagooyin meel haysadaan oo arrintan wala ka qabada koraan oo kaafiya koraan magana waxaan ka dara lahay waxay ataa marka insha allahu tacaala qof walba inaysan ka qayb qaadado wixii karaan shay ah xataa haddii naqada lahayti weji ahaan inaysan ka qayb qaadado beesa wal dhiibooyo mis mal dhiibooyo mal isweydiiyo haddii gadaal alagnagano waxaas aragaase maalka hadda la dhiibooyo waxaa jiraana wejiyaal badan oo la kabiyooyo wamaca daalika markii gadaal la xisaabiyo oo wejiyadaas la fiiriyana waxaa uu maanta anka xaqnimo badanaa tan oo kale meel saaran tar bay ata walaalka oos garab shay roogsatay wiilka oo garab shay as roogsatay marka waxaan dhaha lahayay ani qofkii rabo geega inaas xataa baarinimo aan suubiyo waalidkii dhali arrintan walka faa'iidaysada kore waxay naqdaasi sadaqo sangniyeysato waalidka axaadiis badan meesha laga soo sheegay waxa uu ka mid ah axaadiistaas qofkii qof muslim ee kurba ka feedo ilaahay u sina kurbadiis feedee marka sheekh maxamedna kownin sheegi wanabluukum bishari walkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun marka shar iyo khayr iska jaribee waldhihi marka geega haddii adi ay koo maqanta waxaas ogaadaase min walaalkaay ka jirta ujeedada ilaahay kalayana wala kala ma ee waxaas fiiriyaye yacni hadba mise mar walbaba anuu naftaanu sida alanka yani jawaab naqaano as fiiriya marka ani codkay waxaan ka dareeye codkii culummada iyo dhammaan dadka walaalaha oo meeshan isinka kooyeen marka howlna haddii la ansoo roogsado in la gudi galo waa fayle waxaanan badiya wala kala ma ah fadhiga in laysinka kooyo oo qofkii jiranaya lasoo fadheesiyo yacni waalidkii soo fadheedo oo dadkii ehelka ahaayey wixii xaafadda roogi dhammaan ay kooyaan wala kale ma ah waxaa uu badatay social media markii la roogo barnaamijyada noocan oo kale ah yacni in dadba shaqi ka dhikadaan laakiin kan macnadii waxay ataa yacni wixii inaas jiro inaan markhaati ka naqano oon taskiyoyno oon caddayno baahidaas inay jirto marka dadka walaalaha muslimiinta ah adduunyada meel kastoo ka roogaan anna codka waxaan ka darayay marka oo baaq ahaan ana soo jeediyaane qof walba taagtiis inaysan ka qayb qaadado qofkii yacni gacan ka jeysada koro oo jaab ahaan an ka jeysada koro qofkii weji shay wala ka qabada koro qofkii duca wala ka qabada koro in alka gaabine hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu akhuukum maxmuud sid caalin الله صعب أجمعين أما بعد أولا توفيق الله نوافجيه marka kulankaayna maanta insha allah koley culamo diinkii qafgooye weel shala maqan male marka aqoon-yahantii roogaan odayaashina roogaan marka insha allah koley waxaa waaye ulajeedada meeshan kulumine mas-uud abaaskalar uleeskan haayo oo soo 2 maalmood dhalan oo bur la ka qalay kadibna meesha ka naafooway hadda usoo tumay 3 sano jire oo ulees badan waalidiintii iyo dadkii la noolay ka haayo oo sun imtixaanka Soomaali dhamaan wada imtixaanana marka waxaa la baahanaa in oo
walla ka qabada arrintiis dadka ganacsatada muslimiinta Soomaaliya ka nool dibid rogaan ani walka qabadaan anoo ka hadalaa magaca ganacsatada gaar ahaan Afgooy marka shabeellada hoose marka waxaan u baahanaa ninkaas Mas'uud Abaas Kalar oo 13 jir halhaana daawadiis iyo halaanintiisa waalidiinta ku soo daaleen maanta uleyskaas la qaybsano oo dalka askaankii la saaray dibidda la andiray dibidda ka soo jawaabtay lacag 30 iyo dheeraad kun ama la soo sheegay wixii ba doonana balse qiyaas koro laakiin gurmad alla aan baahan wax qof dhibo dad badan ma dhibo marka ummadda walaaliinta inuu muslimiintu waxaan baaqaanay in ninkan walla aan qabano salmeedii ahaato odkaan hadda ninkiis gaar in share gareeyo ununa waxaan diyaar ana afkayn iyo idinkayn iyo jaabkayn in wal aan ka tarno unugo soo hormarnay insha Allah waxaan diyaar ana hawshaas in maanta kadib halan fadhiisane walaaskaas walaalka aan la qaybsano هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وأخ شعيب عمر قاسم كترسن جناست أفجوين أودي كدومي marka insha Allah ganaastada afgoyn hadii aragan kulli wala hor la in ka qaadan rabo wala boon qeyrkaasna wal ka barnaado jiri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh